kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya maanto sabti ah waa barnaamijkii koowaad taariikhdu waa 22 bisha 8 2026 dhowr war oo muhiima oo soo kordhay intaynu kala maqnayn ilaa xalay ilaa saakay ayaynu barnaamijka kusoo qaadan doonaa haddaba ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa goor dhaweyd waxay ku dhawaaqday Iiraan in si shuruud la'aana oo aan waxba la weydiinaynin oo aan canshuur laga qaadaynin ay maraakiibta shidaalka qaadaysa ee Ciraaq ay markaa mari karaan marinbiyoodka Hormuz u fiirsada way mari karaan canshuur lama weydiinayo waxba lama weydiinayo markab kasta oo Ciraaq ay leedahay oo shidaal wada marinbiyoodka Hormuz shuruud la'aan ku maraya waa la isweydiiyay maxaa dhacay Iiraan sababta Ciraaq maxay kaga bedelatay sababta oo halkan ay u gudbinayso maxay tahay dhowr arrimood keena marka intaynan faahfaahinta iyo waxa laga yiri u galin marka hore aan idin tuso newska telefishinka Al Jazeera ayaa goor dhow qoray wuxuu leeyahay Tehran waxay u ogolaatay maraakiibta shidaalka qaadaysa ee Ciraaq inay maraan marinbiyoodka Hormuz si shuruud la'aan haddaba warkan waxa baahiyay goor dhaweyd wakaalada wararka ee Iiraan waxayna sheegtay in Iiraan ay u ogolaatay qaar kamida tiro aan la sheegin oo maraakiiba oo xanibneyd oo kuwa shidaalka qaadaya oo Ciraaq ay leedahay inay ka gudbaan marinbiyoodka Hormuz arrinkan waxaa dalbaday oo weydiistay Iiraan madaxda Ciraaq marka waxa leeyahay marka arrinkaas dhacay marka arrinkan maxay ka yiraahdeen dadka khubarada ah sababta Ciraaq loogu ogolaaday maanta inay maraakiibteedii xanibneed oo dhan ay gudbaan maxay tahay laba asbaab ay marka ku fasirayaan dadka koow waxay leeyihiin dhawaan waxa booqasho ku tagay Ciraaq gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan ninka la yiraahdo Qalibaaf iyadoo xiisad xun ay ka dhex aloosneyd kooxaha taageera Iiraan ee awlaadda Iiraan aanu bixiyay iyo dawladda Ciraaq oo Mareykanku ku qasbayo inay kooxaha hubka ka dhigto iyo Mareykanka oo la bisha hadda dhalan doonta bisha 9 ee September 30keeda waa ka baxaya Ciraaq marka wafdigan Iiraaniyiinta iyo madaxda Ciraaq way wada hadleen qaara marka waxay qabaan in awlaadda Iiraan loo daayo oo awlaadeeda aan la qashqashaadin ay ku bedelanayso inay dawladdu iyaduna shidaalkeeda halka marsiisato qolaa ku doodayso qola kale waxay leedahay Shiinaha oo ugu badan shidaalka Ciraaq waxa qaata oo isaguna halka ka qaata iyo Iiraan oo saaxiibo ah ayay Ciraaq iyo Iiraan ka wada hadleen sidii Shiinaha maraakiibta u raran ay caadi isaga gudbaan taasna qola kale ayaa qoraysa oo leh sababtaas ayaa loo ogolaaday marka si kastaba ha ahaato laakiin maanta waxa la sheegay Ciraaq inay faa'iido weyn ay qabto sababtoo ah shidaal badan oo ka xanibnaa ayaa halka u gudbay marka hadda ka hor Ciraaqiyiintu wax dhibaato Hormuz ma kala kulmeen 5 markaba nagta laga saaro oo Ciraaq leedahay Iiraaniyiintu ay nagta ka saareen markii ay iska dhagatireen oo Mareykanku soo gudbeentay oo siyaabo kala duwan loo garaacay markaasay edeb yeesheen Ciraaqiyiintu baa la istaagay hadda marka waa loo ogolaaday maanta waxay bilaabayaan inay mari karaan marinbiyoodka Hormuz oo la horkacayo waliba si miinooyinka looga ilaaliyo hawshaas marka halkaasay maraysaa wali waxaynu ku jirnaa wararkii Hormuz oo xaaladiisu ay isku haystaan Mareykanka iyo Iiraan dhanka kale gaashaanbuurta NATO ayaa kulan yeelatay leeyahay maxaan ka yeelnaa Hormuz inagoon wax aysan Iiraan ogolayn ka sameynaynin halkaas u fiirsada Iiraan waa laga baqay NATO way waxa hadlay maalmihii la soo dhaafay 7 koor waata halkan ka soo gudbinayna Ingiriiska iyo Faransiisku inay wadeen qorshe ah isbahaysi inay sameeyaan waa furayna yiraahdeen sheekadaas NATO gaashaanbuurta NATO waxay tiri dhageysta wax ay meeshan Iiraan aysan ogolayn lagama fulin karo
marka annagu waa inaan ka fakarnaa oo aan la nimaadnaa qorshe iiraanna aysan diidanayn maraykanna aanu diidanayn oo aanu ku caawini karno maraakiibta maraya Hormuz. suuragal ma tahay marka? suuragal ma aha. macnaha wax aysan iiraan dhib u keenayn, maraykanna dhib u keenayn, maraakiibtana lagu gudbinayo meesha wax nooc kale waa maxaa imaanaya meeshaan maraakiibta dadaan dhahay ma soo mari kartaan oo shuruudo ugu xiray. shuruudahaas ma furayaan? shuruudahaas furayna hadday yidhahdaan macallinka weyn waa qeylinaya. iiraan waxay taagan tahay markab kastoo maraya meeshaan lacagu iigu shubaya halkan. lacagta ma ayagaa dhiibaya NATO? maya. sidee marka xalku ku imaanaya? marka iyaguna waxaa leeyahay dad uun wax qabanaya iska dhigayaan. ninkii Trump ay seexinayaan waxay leeyihiin shaqaan wadnaayo sidii aan hawsha uga qayb qaadan lahayn la socodhay. haddaba marka jirada la yiraahdo Asharqul Awsad waxay leedahay gaashaanbuurta NATO ayaa waxay ka wada hadleen waxa khiyaar ka noqonaya ama doorashada ay dooran karaan si ay ugu lug yeeshaan arinta ku saabsan marinbiyoodka Hormuz iyadoo faragelin toos ah aysan gaashaanbuurta NATO halka waxa ka jira ku sameynaynin. afayeenka gaashaanbuurta NATO General Elokis Krinkos ninka la yiraahdo ayaa wuxuu sheegay taliyaha sare ee ciidanka gaashaanbuurta NATO in markaasi uu qabtay kulan dhanka videoga la iska arkaa oo madaxda ciidamada kale ee NATO uu kula hadlayay, waxayna ka wada arisanayeen qaabka ay NATO ugu lug yeelan karto sidii loo caawini lahaa maraakiibta doonaysa inay ka gudbaan marinbiyoodka Hormuz iyadoon aan wax dhibaato ah oo isfaham daraan aan lala galayn Iiraan. haddaba kulankan ayaa waxaa la sheegay in diiradda lagu saarayay sidii markaa gaashaanbuurta NATO ay dhinacyada ugala hadli lahayd waxa ay doorkeedu noqon karo. marka waa un afka ka sheeg NATO inay meesha isku gasho marar, laakiin Trump la rabaa in la seexiyo shaqaan wadnaa sidii aan wax u caawini lahayn waxay soo wadaana lama arko. ingiriiska iyo faransiiskana waxaa leeyahay isbaaysi aan samaynaynaa odaga hadda kahor ku seexiyeen weli isbaaysigii samayntiisa ku maqayi weli wax wara odagii lagama hayo oo Trump kama hayo nimankii. waa ku imaanaynaa waa ku caawinaynaa waa la furayaa meesha miinooyinka la qaado. miinooyinka ma idinkaa dhigteen markay tiri Iiraan nimankii dibay u gurteen. hawshaasu marka iyaduna halkaasay maraysaa. dhanka kale wararka kale ee cusub waxaa ka mid ah sanadkii labaad inuu tago Maraykanka oo uu khudbad ka jeediyo xarunta qaramada midoobay New York waa loo diiday hogaamiyaha Falastiiniyiinta ninka la yiraahdo Maxamuud Cabbaas. waa sanadkii labaad oo isku xiga loo diidayo. bil kastoo September waa madaxda caalamka watay UN-ka iskugu tagayeen oo halkaa khudbada laga jeedinayay. ninka markaa wuxuu diyaarsaday dhibaatada Israa'iil ay ku hayso dhulkiisa Gaza siday u doonayso inay boobto wixii la ogaaday. Israa'iil waxay tiri ninka maba ma karaba. ninkii kale oo Falastiin taageerayo dawlad kale ka socda isagu meesha ka hadlaa doono, laakiin ninkan Falastiin ka socda memberka inta fuulo meesha ka khudbadeeyo suuragal ma. marka Trump sanadkii horena wuu ka joojiyay, sanadkan wuu ka joojiyay. arrintaas marka waxay keentaa lagu leeyahay in Maxamuud Cabbaas hogaamiyaha Falastiiniyiinta uu Ankara ugu tago Erdogan oo yiraahdo Erdoganow ninkan fiisihi waa ii diidan yahay sanadkii labaad ee bal la hadal. Trump la leeyahay Turkidu way isku dayeen way ka soo jeesteen alle maamulka Trump inay ninka fiisa siiyaan si uu kulanka uga qayb galo. marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay sheekadaas. maamulka Trump ayaa ka mamnuucay sanadkii labaad oo isku xiga ninka la yiraahdo Cabbaas inuu galo Maraykanka si uu uga qayb galo kulanka jimciyadda guud ee qaramada midoobay ay markaa yeelanayso bisha September. ninkan marka sanadkii labaad oo isku xiga loo diiday. Septembertii horena waa loo diiday, Septembertaana waa looga dhaartay isagoo weliba ilaa Ankara tagay oo ninka u tagay Erdogan la hadal yiri adeerow sheekada ma soconaysaa le. marka waxaasoo dhan marka sababta loo sameynaa Israa'iil diidan ninkan inuu inta meesha istaago uu ka hadlo uu Israa'iil wax ka sheego.
ninkan inuu meesha ka istaago hogaamiyihii falastiiniyiinta kusoo dhowow xaruntii qaramada midoobay in la yidhaahdo waa diiday, iyadoo weliba dowlado badan oo qaramada midoobe ku jira ay aqoonsan yihiin falastiin oo mid walba ay aqoonsanaysa. laakiin ninkii ma tegi karaba, qaramada midoobay waxay ku taallaa New York, fiisaheeda maraykan waa inuu ku siiyo, hadduusan maraykan ku siin ma geli kartid, bannaankaasaa ka qeylqeylinaysaa bis. sanadkii hore marka maxaa dhacay? sanadkii hore aaladda layska arkuu ka soo galay Septembertii hore, aaladda layska arko macnaha asagoo meeshiisa gurigiisa fadhiya la soo geliyo meeshu ka hadlay. sanadkaanna wuxuu rabay inuu tago, sanadkaanna dee aaladii ku sugaysaa leer meeshaa ma imaa kartid. marka sheekadaasaa marka socota. Israa'iil marka maraykanka isticmaalaysaa, waxay leedahay fiisa yaa la siinin qoladaas. marka hawshaas halkaasi mareen. qaybta kale ugu dambaysa barnaamijkeena ugu horeeya maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa imankii Israa'iiliyiinta ahaa mar kale saakay waxay duqeymo ka fulinayaan koonfurta Lubnaan. shalay waatay duqeymo sameeyeen, waatay maaragtay ka caraysiinayaan Iiraan, waatay maraykanka iska dhagatirayaan oo dagaalka joojilayni way wadaan. marka duqeymahaas maxay wax u duqeynayaan? waxay leeyihiin xisbullah ay khatar nagu ahaan aragnay. weliba saakay waxaa la soo tubinayaa bambooyinka ka mamnuuca adduunka in la isku garaaco ayay ku garaacayaan. waa kuwa aad u firira, ma la ogolaa leeyahay meelahaas in lagu garaaco, bambooyinkaasay isticmaalayaan. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyey ee kasoo kordhay koonfurta Lubnaan. weeraro cusub ayay Aljazeera leedahay in lagu qaaday nawaaxiga buuraleyda la yidhaahdo Cali Daahir. haddaba wariyaha telefishinka Aljazeera ee wasoo warama dalka Lubnaan ayaa wuxuu sheegayaa in ciidamada gumaystaha Israa'iil ay weeraro cusub ku qaadeen saakay meel ku wareegsan buuraleyda Cali Daahir ee ku taala koonfurta Lubnaan. marka shalay dhowr meelood ay garaaceen, maanta bambooyinkaasay ku garaaceen. waxay leeyihiin eriyadaas waxaa jooga nimanka la yidhaha xisbullah. marka ilaa hadda marka xisbullahi weeraro ma qaadin. macnaha sida maalmahan ay ugu soo laalaabanayso Israa'iil ay u weerarayso koonfurta Lubnaan, jawaabta ay ka sugayso xisbullah inuu dagaal weyn ay halkaa ka kiciso, xisbullah way u kaadis, way u aamusanta nimanka iyagaa wax weeraray. marka xaalka sababta xisbullah u aamusan tahay sabab oo ujeeda miya maxaa dhacay? waxaas waa hawl kale. laakiin hadda waxa weerarka ahoo warwaa jooga la leeyahay waa Israa'iil. xisbullah weli dagaalka ma gelin, Iiraanna weli war rasmiya oo jawaab rasmiya. nimankanu hadda kahor waxay yidhahdeen waa khadul axmar, waa layn cas inaad koonfurta Lubnaan aada diyaarada ku duqaysaan. heshiisyadii hore maraykan iyo Iiraan u galeen qodobada ugu horreeya ku jirta. nimankanu waxaasoo dhan ma qoraan. haddii cid wax naga qaadi karta ay jirto hanoo timaado waayo. marka waa fawdadaasay iska rabaan. xaggaasaa xallismataa layidhi, dhaqaalaha la isku weeraraya bas xabaday ma jirto. maraykan iyo Iiraan halkaanay marka ka abuuraysaa colaad kale. marka xaalku waa saas. barnaamijkaygii ugu horreeyay maanta waa naga intaa. wixii fakar iyo aragti aad hayso fadlan noo soo qor, like gareeya oo share gareeyana barnaamijka. haddii alla idmo wixii kaloo warara soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkula socodsiinaya. inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo.